السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا سلام صاحبي الملك استاذ دنيا كجوكتان وحرجيني أنا عافمad qabtaan. Masaakiinta iyo dadka dawarsada ama tuugsada waxa ay kamid yihiin dadka la inooga baahan yahay inaan u naxariisano. Waana hubaal inay badankoodu yihiin kuwa ay danta u geysay oo baahi awgeed xaalada ku kaliftay inay dawarsadaan. Hase yeeshee waxaa jira shakhsiyaad ay balwad ka noqotay isla markaana shaqo ka dhigta kana urursada lacag badan. Sheekadeena maanta ayaa ku saabsan nin ka taajiray xirfadan tuugsiga ah. ku soo dhawaada muuqaalkeenna maanta. inta aanan mawduuceena gudaha u gelin waxaan ka afeefanayaa in ujeedka mawduucan uusan ahayn inaan la caawin dadka masaakiinta ah, laakiin aan jeclaysan inaan idinla wadaago sheekadan cajiibka ah weliba khiyaanada ku dhisan ee ninkan uu suuqa uga xiray dad badan oo masaakiin tuugsata ah. Ninkan oo u dhashay dalka Mareykanka kana dawarsada suuqyada magaalada Texas ayaa la ogaaday inuu lacag tiro badan ka helay dawarsiga. Sida telefishin lagu magacaabo Lex 18 oo ninkan dabagal ku sameeyay ku waramay waxa uu ka hanti badan yahay dad badan oo u naxa oo laga yaabo in maalin walba lacag aad u kooban oo ay haystaan wax ka siiyaan iyaga oo aaminsan inuu miskiin yahay. I clear about $100,000 a year doing this. His wheelchair handicap is real, but Lexington police warn this street beggar is making big money by faking a mental disability. Today at 5, watch what happened when our camera caught him in the act. I'm the best. ninkan oo lagu magacaabo Gary Thompson oo da'diisa lagu qiyaasay ilaa 40 jir waxa uu maalin kasta fariistaa dhowr goobood isaga oo iska dhigan dhibaataysan. waxa uu matalaa inuu yahay qof maskaxda loogu jiro ama dhimirka la sidoo kalena naafa ah oo ku fadhiya kursiga dadka naafada loogu talagalay. ninkan ayaa xariif ku ah matalaada marka uu dadka wax weydiisanayo waxa uu qof walba oo arka si degdeg ah ugu deeqaa wixii uu isleeyahay waad ku caawin kartaa. ninkan oo markii dabagal badan telefishinkaasi ku sameeyay ayaa si daacad ah ugu waramay sheegayna in ugu yaraan uu sanadkii helo lacag qiyaasteedu dhan tahay $100,000 Mareykanka ah, taas oo si fudud u soo gasha isaga oo aan u dhiidin. I clear about $100,000 a year doing this. sida telefishinkaasi baahiyay waxa ay muddo dheer oo dabagal ah ku hayeen kaamirooyinka qarsoonna ka duubayeen ayaa waxa uu go'aansaday inuu si dhab ah ugu waramo arrintan. waxa uu sheegay inuu lacag aad u tiro badan haysto oo bilyaneer lagu tilmaami karo, taas oo cadeynaysa inuu hanti badan haysto. waxa dhowr jeer kaamirooyinka ay soo qabteen ninkan isaga oo caadi ah oo dukaamaysanaya iyo isaga oo sigaar cabaya waqti fiicanna iska qaadanaya. Gary Thompson waxa uu tilmaamay in dadka badankoodu naxariis badan yihiin. waxaanu hadalkiisa ku bilaabay aad baan uga xumahay in maanta la ogaado khiyaanadeedii aan ku xoogsan jiray, laakiin waxaan idinka codsanayaa haddaad tihiin shacabka Mareykanka in aadan joojin waxbixinta oo halkaasi aad ka sii wadaan. waxa uu si cad u iftiimiyay in ugu yaraan $100,000 sanadkii ka soo gasho dawarsiga, taas oo uu ku tilmaamay hanti tacab la'aan lagu shaqaysto. waxa uu xusay inuu yahay qof xariif ku ah dawarsiga oo ay aad ugu fududahay habka dadka qalbiyadooda loo ruxo. sida uu ku dooday isdhulligiisu waxa ay u fududaysay in dad badani u naxaan oo isaga oo ka hanti badan ay siiyaan xoogaaga yar ee jeebkooda ku jira oo ayna ka maarmi karin. sida uu tilmaamay waxa uu haystaa lacag aad u tiro badan oo dhammaanteed ku soo gashay si aan dhib badnayn oo fudud. waxaana uu xusay in dadka ka xumaan doonaan marka uu ka waramo dambiga uu shacabka ka galay, laakiin waxa uu ka codsaday in waxbixintu aanan dayin oo dadka masaakiinta dhabta ah ee u baahan ama noloshoodu ku xiran tahay inta yar ee la siinayo aanay kala baqaylin oo aanay saameyn ku yeelan waxbixintooda. tawdiyaal muuqaalkeenna maanta halkaas ayaan ku soo gabagabaynaynaa. haddii aad sheeko noocan oo kale ah hore u maqashay ama aad la kulantay fadlan commentiga noogu reeb. sidoo kale waxaan idinka codsan lahaa haddii aad ka hesheen muuqaalkan like saar lana wadaag asxaabtiina kale. waynoo muuqaalkiisa insha Allah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.